daawadayaal dhagaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii garnaqsi ee toddobaadlaha ahaa. barnaamijka garnaqsi ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa dagaalkii 77 ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray iyo dagaalkii ka horeeyay ee 64. waxaa sharafna noo ah in uu marti noogu yahay barnaamijka garnaqsi Generaal Maxamed Nuur Galaal oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya muddo dheer ka tirsanaa ilaa uu ka gaaray darajada Generaal Maxamed Nuur Galaal sida uu noo sheegay waxa uu ku dhashay deegaanka Ceelbuur 1938 dabadeedna waxa uu ku koray oo ku barbaaray dugsigiina ku dhigtay iskuulada noocyadii kala gedisan heerarkii waxbarashada ee kala gedisnaa magaalada Muqdisho. dabadeedna waxa uu ku biiray ciidamadii qalabka siday ee Soomaaliya. Generaal Maxamed Nuur Galaal ku soo dhawaaw barnaamijka garnaqsi ee telefishinka Shabeelle. bismillaahir rahmaanir rahiim. waa ku dhawaad adeer ma aragtay aad ayaan idinkaga mahad celinayaa inaad ugu sharaftaan inaan idinkala qayb galo barnaamijka magacaas leh. hadda wixii aan ka ogahay waa sheegaya insha Allah. waxaan rabnaa Generaal runtii jiilasha soo socda in wax looga tago oo maadaama rag badan baa dagaalka ku howlanaa wax geeriyooday iyo wax nool intaba waa leeyihiin. Generaal Maxamed Cali Samatar Allah u naxariisto uu geeriyooday. Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto asna ma noola. raggii aad muhiimka u ahaa dagaalka ayay ahaayeen. adiguna sida la ogsoon yahay waxaad ahayd xubin firfircoon oo aad magaciisa loo sheego xilligii dagaalka inkastoo dad badan ayna garanayn kaalinta aad ku aadaneed. marka bal noo sheeg marka la yiraahdo yacni ugu horeyntii horta adigu sideed ciidanka ugu biirta? bismillaahir rahmaanir rahiim. waxa weeye anigu waxaan wax ku soo bartay meel la dhihi jiray College Military oo ah military boarding school waxaan la yiraahdo. meeshaasaan ku jiray intermediate-kii markaan dhameeyay galaaskii 8aad ayaa awal waxaan rabnay ilaa ay secondary-ga inaan socono ayaa la yiri maya waa halkan idinkugu eg tahay waxaad noqonaysaan booliis. annaga waxaynaha waxaana la geeyay iskoola booliisiya 9 bilood ayaan ku jirnay meeshaas. iskoola booliisiyahan hadda ku arag 9 bilood aan ku jirnay. waxaana baranaynay wax la yiraahdo technique professionale de polizia professional technique of the police farsamooyinka booliska. marka waxay ahayd 57 ayay ahayd 58 baan ka soo baxay anoo 2 alif la noqday. markaasna waxay ahayd oo la kulanay ayadoo booliiskii qaybtii booliiska ee gobolka Banaadir la Soomaalida lagu wareejinayo Somalization wax la yiraahdo oo Talyaanigii iyo maamulkiisii laga wareegayo stationadii iyo magaranaysa qaybihii iyo wax la dhihi jiray tenancy booliisiya. marka waxaan xusuustaa qaybta booliiska ee Banaadir waxaa loo dhiibay Maxamed Siyaad Barre oo gaashaan la ahaa markaas konton iyo 58 ayuu gaashaan la ahaa. waa gart tenancy booliisiya wax la yiraahdaa jiray oo ka hooseysa divisionka booliiska ka hooseysa oo iyadana waxaa loo dhiibay Cabdullaahi Yuusuf oo markaas ahaa 2 xidigle. waa gart aniga oo 2 alif la ah oo 20 coach sana jira waxaan noqday taliye saldhig booliis. markaas aan noqday waxaan bedelay marshaale Talyaani ah ayaan bedelay. stationkaas waxaa la dhihi jiray Beyt Ras wuxuu ku yiilay meesha hadda maxkamadda sare
ay ku taalo iyo maaragtay iyo wasaaradda maaragtay cadaaladda iyo halkaas station ay ahayd booliis baytiraasa la dhijay halkaasaan ka noqday taliye adoo laba alifla ah anoo laba alifla ah dabadeedna markaan 6 bilood camal joogay ayaa waxaa la ii bedelay dhinacii ciidamada maaragtay gruuba mobile la dhihi jiray waxaa jiray ciidamadii soomaalidii hore oo inta 4 batalyan ay ahaayeen inta la ruqsayay batalyankii waxaa laga reebay horin laga reebay 4tii horewada la isugu go'ay gruuba mobile la dhihi jiray sidii ciidan ay ahaayeen halkaas waxaa jooga mijir talyaaniga xukumay oo ah taliye xigeenka booliiska marka Soomaaliya ciidan booliis oo kaliya markaas leedahay bes ay leedahay military ma jiro waana 58 waa 58 waxaa military ugu dhow 4taas company oo structure-kii hore iyo tababarkooda iyo hubkoodii sidii hore u haystaa gruuba mobile la dhihi jiray marka meeshaas waxaa mijirka xafiiskiisa ugu hooseeyey nin laba xadiglaha talyaani ah ninkii baan bedelay ninkii baa la Italia loo diray laba xadiglaha talyaaniga kaasaan bedelay Somalizationkii socday ayay ka mid tahay 10 sano oo loo diyaarinayay xornimada lagu jiraa marka halkaas halkaasaan ku dhamaystay maaragtay intii xorriyadda ka horreysay oo dhan intii aan la qaadan inta halkaasaan joogay maalinta xorriyadda la qaadanayo ayaa ciidanka xoogga dalka waxaa ku dhawaaqay Cabdullaahi Ciise Allah u naxariistay ciidamada xoogga dalka ninkaas aasaasay iyadoo ay gaalkii talyaaniga meesha joogay oo administratoraha ahaa oo veto lahaa wax walba veto uu diidmada qayaxan oo lahaa uu diidanaa ciidanka in la dhiso isagoo ku sababeynaya dhaqaale iyo waxyaalahaas waxaa kaloo diidanaa xataa baarlamaankii waagaas jiro Soomaalida uu diidanaa iyadoo dhaqaale lagu marmarsoonayo laakiin Cabdullaahi Ciise oo ku adkaystay anaa dhaqaalahayga u doonanayo yiri marka gruuba mobile baa saldhig u noqday raggii booliska ahaa ayaa xaggii loo wareejiyey ciidanka saldhig u noqday 2,000 oo nin hal qoro uu yiri oo Cali Booga ayaa la dhihi jiray waa la qoray 6 bilood ka hor intaan xorriyadda la qaadan ayaa ciidankaas la tababaray maalintii xorriyadda la qaadanaya 1 Luulyo waxaanu lahayn labadaas kun iyo kunkii gruuba mobile 3,000 oo southka ah iyo waqooyiga ay jirtay 1,000 nin oo la dhihi jiray Scouts Regiment oo Ingiriiskii uu ka tegay 4,000 aan lahayn hadda dagaalkiina 4,000 oo maaragtay nagu qabsaday marka ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya 4,000 lagu asaasay 4,000 lagu asaasay dabadeedna taliya loo magacaabay marka taliya loo magacaabay General Daawud ayaa noqday Daawud laga dhigay oo general noqday ku xigeenna General Maxamed Siyaad Barra u noqday habeenkii xorriyadda lagu qaadanay habeenka ka horreeyay maalintii ka horreysay ayaa waxaa naloo keenay Daawud oo gaashaan la sare ah iyo Maxamed Siyaad oo gaashaan la dhexe ah oo midna uu yahay taliyaha midna uu yahay ku xigeenka habeenkii baa xorriyadda la qaadanayay ayaa General Daawud wuxuu noqday sareeyo guud Maxamed Siyaad wuxuu noqday gaashaan la sare markaas 1 Luulyo saas inuu soo baxday anigana 3 alif la noqday oo aniga hal alif lagu daray anu ma rabin in ciidamada noqdo inaan ruqsaystaan rabay markaan iskool aan dhameeyay markii ma aragtay intermediate soo dhameeyay 2 sano oo waxaan galay oo galabtii aan dhiga jiray oo secondary-ga ahaa laakiin waxaan arkay in waqtigii dhamaanayo iyadoo secondary-gu ay dhamaanay
markii waqtiga marka ciidamadaadi iska daysatay maya waxaan tegay iskool la dhihi jiray preparazione politica amministrativa oo funcionaariga Soomaalida ee sibilka ay ka soo bixi jireen oo sanadii Talyaani lagu dhigo Talyaani lagu dhigo xawl waa Talyaaniga kaasaan private ahaan u galay adoo askarigaagii anoo 3 xalif la waa baasay waa ku baasay dibloma waxaan helay u dhiganta secondary oo waliba runtii aad iyo aad ay aqoon fiican meesha ayaa iga korortay aqoon fiican ay iga korortay ciidankaagii waad sii wadatay markaa diblomadii qaadatay dibloma markaan qaatay ciidankan soo watay waxaan isku qoray Istituto Universitario oo jirtay oo maash jaamacaddu ka soo bilaabatay Soomaalida maxad heer jaamacadeed oo Soomaali ka furnaa markaas aad isku qortay oo 2 sano labada sano galay waxaan dhameeyay 62 ayaan dhameeyay 37 material la dhiiba imtixaan ayaa la galaa ilaa ay dhamaadka aniga waxaan dhameeyay 35 imtixaan galay iyadoo 2 ay dhiman tahay oo isleeyahay bari ama saa dambe aad gash markaas xidig laad noqotay ayaa ma aragtay inqilaabkii la isku dayay Hargeysa dhacay 61 December halkaas laga booday nimankii oo lagu bedelana kii Xasan Keyd oo taliya oo kaabaha ka inqilaabka meeshii uu jooga la geeyay xamar baa laga waday xidig la tahay Hargeysa lagu geeyay horta iskoolkayga oo jaamacadda halkaas oo iga banjaray 2 imtixaan ay iga harsanayd waxaan rabay la igu qanciyay ma aragtay in haddii aan 2daas imtixaan dhiibo in la ii diro anoo xidig la baadaba meel la yiraahdo Talyaaniga ku taal oo sharciga lawyer inaan noqdaan rabay anigu lawyer inaan noqdo ma rabin askarta ma rabin General Daawud Allahu naxariisto iga yeelay inaan ruqsaysto laakiin wuxuu siyaad iskay hortaagay janankeena ka dhaadhiciyay marka halkaas macnaha iga banjartay wixii aan xagga sidaas baad ciidankii ku gashay marka kuugu xigay marka Hargeysa la geeyay 3 sano markaan joogay oo tahay tahay 63 ayaa ma aragtay waxaa jiray qonsul Ingiriis meesha joogay qonsulka Ingiriiska Dickinson la dhihi jiray waana xusuustaa ayaan xiriir baan lahayn xiriirku wuxuu ahaa baxarkee meesha aan anigu xafiiska aan fadhiyay ayaa wuxuu u dhaxeeyay public oo dhan iyo taliska wax walba halkaas ka soo dhacayeen markaas taliyaha ma aragtay qaybta ma aragtay ayaan aniga halkaas waxa ka soo dhacay marka waxaa jiray wax la yiraahdo corriere diplomatico boojka diplomaatka oo qonsulkaas rabo inuu diro iyo midkii Talyaaniga asna jiray ayay waxay ku dira jireen dayuuradda kaliya oo ay jirto midda militariga marka ana ii soo mari jireen halkaas qonsulka Ingiriis oo isku saas baad xiriirka ku yeelatay aad nin fiican buu ahaa wuxuu ii sheegay in Ethiopia ay rabto inay qabsato gobolada waqooyi annaguna haddaan Ingiriisna ma yeelayno waa gartay hayeesadii wax yeelaysaa waa ka shaqeynaynaa markaas waa intaadan sirdoonka ciidanka u wareegin ma jiro rusha inaan aadaa ka sokaysa
marka wuxuu yiri wuxuu keenay waxay noo keeneen 5 taangi oo la dhihi jiray comet taangi ingiriiska idin keenay ingiriiska noo keenay wax ka horna taangi ma haysataan ma jirin kow aan arkayno madfaca 77 millimeter ah saaran wuxuu rabay ingiriisku inuu balatoon waayo kooxdaas inuu haddana markii si fiican loo barto inuu balatoon kale ku daro mid saddexaad ku daro horin ay noqdaan taangi oo 16 xabo ah alla ma qadarino markaan 3 joogno 3 taangi markaan 5 joogno waati xiriirka ingiriiska la kala goostay arintii hawd iyo waxyaalahaas waa gartay marka anagoo 5taas taanga haysana iyo 6 madfac oo Talyaanigu keenay isla hadleen Talyaaniga iyo ingiriiska ayaa oo 6 madfac madaafiic fiican ahay iyo 4 kun oo ciidanka iyo 5 taanga 2 kun askarta waqooyiga laba kaliya iyo dhowr kale halkan jooga afarta kalena meelaha labada kalena halkan ku mashquulsanaay baydhabo iyo feerfeer iyo waxyaalaha xoogay waxay soo saartay waqooyiga Ethiopia oo ninay keeneen oo ciidana gaaska saddexaad la dhahay amaan andoom la dhihi jiro Eritrea oo generaal aad iyo aad u qaalan ayaa watay wadahaya wiiga soo socda berbera ayaan qabsanayna waa gartay warkii waxay wataan 10kaas noonin iyo taangiyaal yar yar oo Mareykanku siiyo la yiraahdo M24 oo laakiin madfacooda uu yar yahay waana imsa taangi ay wataan markaas 24 xabay wataan waa gartay laakiin madfacoodu ma karo taangigan 4 taangida haysataan 5 aan haysan 5tiina ka tayo fiican ayaa ka tayo fiican mid baa naga xumaaday midkii wax lagu bartay 5tii starterkii naga xumaaday marka 4tii soo hartay 2 tugo jaalan geynay 2na ina guuxa oo meel labada meelood ay rabeen inay Berbera Hargeysa ka soo galaan marka ina tugo jaala waxa joogay Abuukar Gacal muddo oo markaas mijir ah ina guuxana waxa joogay Salaad Kabayre salaadna markaas oo asna mijir oo gaashaan la sare gaashaan le caadi gaashaan laba gaashaan la way haduna xidig la taawli anigu laba xidig la taa markaas markii ay weerar ku soo qaadeen labadan taangiya meel wala frontiga ka soo qaaday eberka dhigta baalay yar yara dib ay u gurteen marka waxay goosteen inay frontal badan ugu furaan maadaama ay naga ciidan badan yihiin front saddexaad ay nagu fureen meel la dhigi jiray Dabagoryaale ayay nagu fureen waxa joogay Doonyaale Ibrahim Doonyaale ayaa joogay Doonyaale meel uu joogay Salaad Gabar meel uu joogay Abuukar Gacalna meel uu joogay xarunta ayaa jooga nin oday ah la dhihi jiray Jaaca oo Muuse iyo Sabantar xaruntii xamara xarunta Hargeysa Hargeysa aniguna halkaasaan joogo waxa jooga odaygaas iyo Sabantar iyo aniga waxay frontiga Dabagoryaale nagu fureen waxay rabeen inay inta jiiraan waxay joogto dhowr boqol oo nin ay joogto oo ciidan oo aan technical haysan 4-5 waxa yar kii ay wateen inay inta jiiraan burca qabsadaan ay rabeen burcana halkaas Berbera ka galaan saasay strategy qorshahoodu marka waa la iswarsay maxaa la qabtaa odayga aqoontuna waa yarta markaas aqoonta waa yarta waxa uu fikir oo shakhsigu alla ku abuuray mooyee Daawudana taliye idin xamar ka soo hadlaya wuxuu yiri Jaac Muuse
maxaan samaynaynaa haliyar markaasuu yidhi haddayna soo jiraan waa ka baxaynaa magaaladoo gorilian gelaynaa yani dagaal jabhadeed ayaan gelaynaa dokumentiga iyo waxa dhan oo gubaynaa waxaa hadla sabadrana wuxuu yidhi waayahay waaya aniga waxaa seewa magaalada maan uga baxaynaa magaalada maan xabashada uga baxaynaa waxaas waa aqoonahatan saas oon laana ma jirin ra'yin baad sheegaysa ra'yi aha waxaa yidhi ina guuxana waa ka soo baxaynaa tagujaalona ka soo baxaynaa magaaladanaan daafacaynaa afartaas taangi haddaan haysano iyo 6daas madfac weligeedna ma soo mari karto laakiin taliskanu meesha noo ahaanaya magaaladan dadkana waa kicinaynaa wixii qoryaha oo badan oo haysano yar oo jajaban dadkan siinaynaa bushti bashta meel walba ha looga siiya annagoo intaas isku hayna ayaa daawud soo hadlay war maxaa idin qorshaa odagii hadlo wuxuu yidhi haddee saasaan yeelna inaan jabhadayno aan garanno saasaan alisamantaraale jaac muusaa dhahaya markaasu hadda saasaan isku raacnay laakiin fikrad waxaa jirta uu yidhi dhahaysa aan tawajal iyo inagu wax ka soo baxno magaalada aan daafacano ma garanaysaa 2 taangi iyo 6 madfacana aan magaaladan ku daafacno fikraddaas yaa keeno uu yidhi saleexe 2 xidig lahaanaa wada taasaa la yeelayaa uu yidhi taas waa gartay marka aniga waxaan la yaabanaa odaga shacab mase waxba ma oqoon garab saardaro u ahaa laakiin ninkan calim samantar ah intaas oon kusoo jiro oo iskoola militaarana ka soo baxo talyaaniga inuu ku qanco waxa sidaas basiidka ah waxa odagu sheegay aad iyo aadaan u qawaday waa gartay maxaa ku xigay marka waxaa ku xigay qorshahaas xabashida sidii laga yeeli lahaa oo inay burco qabsato marka taangigii waa ma soconaa starterka ka xun waxaa jiray nin la yidhaahdo cali nuur oo halgankii markii cabdullahi xaysan uu joogay qarash badanaa ku baxayay nin taajiro wuxuu ahaa america degan oo aad iyo taajir reer waqooyi ah oo reer waqooyi ah cali nuuraa la dhihi jiray anigu hadda magaciisa waa maqli jira markaan yaraa cabdullaahi ciise cali nuur iyadoo la leeyahay ilaa ninkiiyaa magaalada jooga hargeysuu jooga markaa taleefon soo diray iridow yimid warqaduu wataa warqadaa la ii keenay iridii oo xarunta xaruntii militariga hargeys warqadaa la ii keenay waa fiiriyey waxaa ku qoran oo soo saxay cabdullaahi ciise warqadu jalad wuu xoog leh ku qoran tahay talyaanina oo ku qoran tahay uu leeyahay ninkan dowladda dhan waxaan amrayaa ninkaanu meeshuu yimaadaba si sharaf leh oo maaragtay xushmada ra-iisul wasaarahoo kale in la siiyo yiri wax alla wuxuu rabana loo sheego waxna aan laga qarin warqadaas saasoo ku qoran cali nuur aniga waa garta kii inuu yahay la sheegaya waagi la soo daayo bal baabuuraba u diray iridan ka soo way ka fogtahay irida iyo xafiiska kale fog yihiin baabuurkii aan u diray waa la keenay haya adeer waxaan rabaa uu yiri taangi uu maqlay taangiga taangigii idinka halaabo maqlay uu maqlay wuxuu yiri taangiga yaa sameeyey waxaan ingiriis sameeyey kuma taangi baa la yiraahdaa birtii aa waxaa uu yiri كانوا يربرت من MTO اللي يراد ماشي تشوغان وياي وربرتي كان تليفون انت ودري بابا هل وين شاش انت سليك الشغل الاردي وكان ما ترى هذا الموضوع باورك اي صار غرغا اي جاي باورك صار غرغا جاي افر بريك بعد ويسو waxay magaalada باورك اي soo dir haye oo dir bish cusub wada birti cusub okay crown agency meel la yiraahdo oo ingiriiska ayuu ka soo gaday awood u leeyahay inuu waxa soo midda ingiriiskuna oo ogaa inta taangaalkaas garanaysaa way soo siiyeen waa qaadnay meeshaan taga isagoo taagan ayaa birtii la geliyay
silifkaa lagu dhiftay yow cirka u booday magaalada askartii oo dhan oo maaragtay xarunta joogto dhan isku kacday farxad markaas waxaa la qaaday hees waagaas casri ahayd oo maalmaha soo baxday oo geeshka iyo guuleysta la yiraahdo odagii waa iska ooyey ilin calnuur ilin hees markuu baxaya iyo markii mar walba waxaan u qabanaynay salaan ra-iisul wasaaraha oo kale aan u qabanaynay maamuusa u samaynaysay maamuus wayna u samaynaynay marka markiiba maqribkii markay tahan yaan saa naloo arag ayaan baabuurka waa jiidnay taanka baabuur weyn oo iskaama la yihahda noo yeelay oo xoog badan dagaalkiina markaas ina gooxaabaan rabna inaan goyno okay diyaar garowgeed ku jirtaan dagaalka waa jiidnay 10 kilomitr markaan magaalada dhaafinay saan loo arag ayaa baabuurka aan kicinay waa la gaday cawanimo xaggii tegay 10 kilomitr markuu magaalada u jira la damiyey baabuurka lagu jiiday frontline-ka la geeyey waa la daday subaxdii ayay weer soo qaaday markaasna waa 64 waa 64 dagaalkii 64 dagaal bay soo qaaday bush afartii yar ka ahaydaa soo hormartay taangeelka marka saddex markiiba kaga tuuray taangigii kuwii Etoobiyaanka xabashida indhaha waaga ku bariyay markuu ku bariyay inta kalena carar annaguna askartii wixii intii joogtay doonyaal iyo xisinta iyo halkii taange dabada laga galay meel halkaas isku buurteen wadaxo ay wal ku yimaadeen isku buurteen annagu xuduudda ma dhaafin tabartayada iska yareyd horta halkaas markay marayso waana markii la kala saxeexday heshiiskii ruushka iyo Soomaaliya 3 bilood ka hor la kala saxeexday marka nimankan waxay ka gaarsiinayaan intaan hubku imaan hubka ruushku intoonan idin imaan marka ruushkii asaga laftiisu waa galgishay oo ka xumaaday xayl salaaso toos u hadlay Khrushchev jooga waagada oo hadda asna qaraf kala qaraf Trump kaanoo kale xayl salaaso haddaada ka noqon oodan ciidamadaada kala bixin Soomaaliya wixii kugu dhacada waa meeshaan isku arkaynaa wallahi jigjigan waxaan soo imaanaynaa Addis Ababa hadda xayl salaaso فاهم بوها فاهم ciidankiisii la baxay balaa ciidankiisii la baxay marka cadaadis international oo siyaasadeed ayay Ethiopia ciidankoodii xuduudda kala baxeen dagaalkiina joojiyay dagaalkiina mid kalena way arki weydaade access tawarti waa ku tawar beeshay maxaad ka dhaxasheen dagaalkaas markaas maxaa keenay maxaad ka dhaxasheen maxaa ciidankii militariga markii dagaalkii dhamaaday 64 qiimeyn ciidanku ma isku sameeyay qiimeynta wala isku sameeyay ma aragtay dawladda ilaa 4,000 oo ciidana iyo 5 taangi diyaaradana ma lihidin markaas ma jirto Hargeysa nagu soo weerareen ayagu waxay lahayd dawladda oo Afrika qolada ugu horeysa dawladda lahayd hal yar oo laakiin marka 10,000 oo ciidan in ka badanna way soo galiyeen waa soo kiciyeen Hargeysa nagu soo weerareen dawladii 4 xabo ما يلا واحد بيها بي عبارة ميلا كتور تورين وحوينا effective ما يرهين واسكن عودين لكن بانك يدك كل دين وعبسي قليل محا ku xigay marka arimahaas markii dagaalkaasi saa ku joogsaday dhanka militariga maxaa dhaqdhaqaaq laga sameeyay wax ka tansaasoo kale waxa soo bilowday hadiiba wixii militariga oo ruushku maaragtay iyo dhaqdhaqaaq hore oo ka dareenay xataa maraakiib oo dekada waxaa la dareemay in baahi loo qabo hub in la helo iyo khubaro saraakiilna la tababaro marka ciidan badan loo diray ruushka anigu marka waa xamar baa waxa la Hargeysa ka tagay xamar baa la geeyay
xamar xafiiskii maxamed siyaadan taaga maxamed siyaadan markaan taliya daawad waa dhintay allah u naxariisto allah u naxariisto allah u naxariisto waa gartay taliskiyaa lagu soo wareejiyey ha halkaasaa la ii soo wareejiyey markiiba waxaan aaday ruushaa lagu diray maxaad soo baranaysa markaas military intelligence sirdoonka militariga sirdoonka militariga marka hore hadee waxaa la mid tababar buuxo oo dagaalka marka hore lagu siinayaa marka taas ka soo baxdeeda la gelayaa bahashaan kale marka waxaa ku takhasustay sirdoonka militariga waxaadna tahay markaas marka meeqa xidiglaa tahay markaasna kabtan baad noqotay 3 xidigle hay marka waxaan ku soo takhasusay wax la yiraahdo field and strategic intelligence ayaan ku soo takhasusay midda ciidamada tababarkooda ka sakow 5 sano ay ugu qaad 5 sano 5 sanaad soo ku jirtay marka xamar baan imid jabhadeynta iyo sida jabhadaha loo tababaro iyo sida xogaha loo siiyay iyo ku jiraan kulli waa ku jiraan waxaa ku jira intelligence strategic intelligence kay ku jiraan fieldku waa wixii militariga ku xisaabsan waa dagaalada ciidamada xaggaba strategic intelligence waxa waaye guerrilla contra guerrilla iyo espionage oo saddexda xogaha raadintoodii aad complicated u tahay waad soo dhammaystay marka soo dhameeyey xamar baan imid sanadkaa timid xamar 9 waxaan dhihi lahaa waxaan imid 69kii dhammaadkiisii aad ku soo noqotay waa intaan inqilaab ku dhicin intaan inqilaab u wadaa waa gartay welina waxaa tahay 3 xidigle kabtanaan laakiin hadde waxa madaxayga ku jira yaab anaa la yaabanaa ilaa wax badanaa soo baratay markaan saraakiisha la shirinayo oo maalinta khamiistaa la shiri jiray oo wax la sheegayo waa la yaabi jiray nimanku waxay ku hadlayaan waad dhegeysanaysaa waa dhegeysanaya waa joogaa waa la yaabi jiray dhalinyaraa tahay odayaalay ka dhammaataa u haystaa eber laakiin maxaa dhacay practical kaa maqan theoria buuxdaad leedahay laakiin practica ma haysid anoo saas dadka ula yaaba inta la bedelaa baydhaba lay geeyi markaasa la abaaduulaha qaybtaa tahay meel alla meelaan ka bilaabo aad garan weyse aan garan waaye odayaalkii oo maaragtay aad la yaabeysay iga fiicnaa laakiin markii aan muddo joogay waa ii furfurmeen wixii waxaad iswaafajiday wixii aad soo baratay iyo yani shaqadii dhabta aheedee goobta shaqada taallay waa saas wixii aan fahmay markaas waxaa laga cabsanayay in xabashidu isku daydo inay kacaanka caburiso oo isa weerar soo qaado intuusan xididaysan marka heegan aad ku jirteen heegan aan ku jirnay qiyaastii markii la qiyaasay waxaa la yidhi beledweyne ay ka soo geli karaan markuu ii bedelaya halkaas waa ii yeeray meesha haddee isagoo taliyihii ciidanka ah isagaa taliyihii ciidanka ah inqilaabkiina sameeyey weli lama samayn markaas waa sameeyey markaas inqilaabka markuu dhaca kadib uu kugu yeeray marka awal waxaan joogay xafiis xuma la dhihi jiray wardoonka sirta oo ina dafle joogi jiray oo wiilkiisa ah hadee oo sheema wax ogyahan aan la arag waxaan la yaabi kuwan la yaabi jiru ku jiraa markay hadlayaan iyo markay shaqaynayaan kii baan isqabanoo xoosyada dee waa wiilkiisii waaye inta ganaax u baydhabo ii bedelay baydhabo sababtaasa lagugu diray saasaa la igu diray 19 maalmood inta ganaax igu dhiftay ayuu baydhabo ii diray baydhabaan joogayoo dee waa la arkay wixii maaragtay qoftu inay diyaarsan tahay marka uu ganaaxayo weli inqilaabka ma uusan samayn marka baydhabo anoo baydhabo joogaa bahalka uu ku dhiftay inqilaabkii
kabacdi waa ii yeeray warni wuxuu yiri wixii hore waa tageene haddeer aqoontaada haddaa loo baahan yahay orod bay waxaad tagtaa beledweyne oo meeshaas amxaarada naga soo weeraraysay hadda meesha adaan kuu diray waxaana jooga mid reer Ismaaciil Boqoraho oo gaashaan la dhexa ah anna gaashaan laanaha markaas ninkaas wuxuu ma ogay war asoo Talyaani oo kasoo war Talyaani xoolo ma ogo yiro orod meesha tag ciidamadana aad u kala yaqaanaa markaas bes waa kii haddiiba waa la bedelay oo inqilaab Salaad Gabayri ayaa saameeyey meesha ana marka taliya ka noqday Hiiraan qaybtii beledweyne Hiiraan waxay ahayd qurac jooma taqaan ilaa iyo Boosaaso inta ka dhaxaysa meeshaana markaas ciidanka tiradiisu imsay laagta tartiib waa kor adiga markaas ilaa on dhowr iyo 10 kun waa la yahay waa la gaarsiiyey 20 kun waa ku dhow yahay haddana waxaa soo bilowda maaragtay taangiyaalkii la dhahayay T-34 la dhahayay oo ruushka kuwii hore ah taangiyaal hore laakiin Afrika ka adkaa meel kastaba ilaa wada beer meeshaas qaybtii markaan si fiican satalad uga dhigana annaga aan isku kalsoonina gashay inayna soo weerari karin ayaa markaa haddana xamar la ii bedelay ayadoo militariga xoogga haysta xoog leeyahay hoggaankaas leegay sahanka wixii annagoo halkaas joogna hoggaankii sahanka joogna ayaa waxaa yimid ayaa ruushkiiba u ordayaa yimid saraakiishoodii khubaradoodii ay idin yimid nin waxaa yimid boolid buurooga xubinka ah oo admiraal ah oo ah ninka filiidka midowga Soviet iyo Warsaw Pact oo dhan ninka xukuma ah ayaa oo message wada fariin wada yimid waana sanadkeed maraysaan markaas ya sanadkee way markaas sanada waa 64 oo 74 markaas wuxuu casuubay Samatar iyo aniga waa la yaabanaa dad badan oo iga ansaanaysan marka gaashaan la saraana waxaa jiro abaandulihi oo ah Abdalla Fadl oo sareeya gaas ahna member oo golaha sare lama yeerin ana la yeeray markaan meeshii waxaan arkay Samatar oo fadhiya bas safiirkii baa sheegay wixii inshallah admiral ninkan waxa waaye gaashaan la sare Maxamed Nuur Galaal waana taliyaha hoggaanka sirdoonka ninka inta tilaabo hore u soo qaaday ayuu yiri oo afruush ku hadlo wuxuu yiri war waa shakhsiga ugu xiisaha badan ee national army-ga ku jira kii ruushka dhahay ninkii yimid admiraalka hadalkaas waa ay dhibay aniga markaas Samatar fadhiya waxaa u muuqda marka ruushku ay asagaba waa baqda marka saxaar kii u sheegay hadda oo sheegay odaga loo sheegaa marka halisad galaysaa ba istiri adigu ninkii cawaday waana marti qaaday cawaday casho uu sameeyay ninka waa iska burqaday waa gartay muxuu idin sheegay marka wuxuu noo sheegay in maaragtay balanskii strategiga ah ee Warsaw Pact iyo NATO oo xagga NATO u janjeersaday markii ayaga laga saaray Masar ruushka oo Amerikaankii la wareegay in isbahaysigii ruushka laga itaal rooraaday ayuu idin sheegay oo ciidamada wuxuu yiri hadda hadii dagaal qarxo waana la ka adkaanaya
exercise aan samayno yiri wuxuu muujinayaa in la ka adkaanayo haye haddaad waxaydan qabsadaan idinma soo gurma karno sida xaalku hadda yahay haye waxaan goosano oo dowladdii midowga goosatay waxaas Maraykan baa nagu soo Maraykanka inaan ka argoosano sidada uga argoosanaysaa qaliijkan ka saaraynaa qaliijka ayaan ka saaraynaa war Maraykan qaliij lagama saari karo aniga hoosan iska leeyahay ma wuxuu sideeyay haddana tabtiib uu sheegay wuxuu sheegay maalintaas uu noo sheegay in Ciraaq ay qabsanayso Kuwait Yemen xumaada koonfureed inay ku duuleyso tii waqooyiga cadan Yementii waqooyiga cadan inay ku duuleyso wuxuu noo sheegay Sacuudiga 72 meelood oo halbowle ah inay ka qarxinayaan marka ay bilaabato dagaalka weerarka oo NATO iyo ku qaadayo Ciraaq oo ku qaadayo 72 meelood halbowlahan qarxinaynaa oo Sacuudiga dadka qarxilahana waa joogaan qalabka wax lagu qarxilahana meeshay joogaan meel walba diyaar waa gartay marka idin ka rabaa idinka inaad sameeyaan markaas Soomaaliya muxuu ka rabaa marka inay sameeyaan hadalkii uu waday wuxuu yiri meesha Hormuz buuriga Hormuz ma taqaanaa Hormuz halkaas waxaan geynaynaa weerar 4 maraakiibtan weyn oo leeyahay cruiserka oo nuclear powered ah xagga labana xagga wax maray waa xiraynaa haddii lagu biyo keenana kruuga samareenaan uga bixinaynaa buu samarino baharahana meeshaan ku qarxinaynaa 4 meesha dhan contaminated ay noqon isla holcada waxa dhan waxa meel la maraya ma aha 10 sano soo socda way xirayaan marikaas iyo radioactivity wixii baashi shucaaci baa wuxuu yiri wuxuu noqonayaa 200 wax maraya male 10 sano soo socda noole mara kara ma jiro taasna iska xiraynaa uu yiri bahalkan Iran wuxuu joogan markaas waxay joogeen hashan inta ahayd Afghanistan ay ka dagaalamayeen halkaas aan uga soo degaynaa ay dheen Iran waa qabsanaynaa waxaan ku diraynaa oo la yiraahdo hay ahayd jabhad oo Iraniyiin oo Iraq fadhiday mujaahidi khalaq waqtaas mujaahidi khalaqaas kuwaas aan u dhiibaynaa xukunka Iran tan ugu soo jeestay adinku ma lahaydan dhul aan naga maqan hadda dhulkiina doonto wax alla waxa rabtaana ee weydiiyay huba awo jabadii Soomaali galbeed la dhahayo markaas la yiraahdo magac ahaan inuu jirtaa markaas jabhada magac ahaan waa la kala dirdiray waa kala tirtay meelay ku kala firtaan nare maaragtay markaas hadda dib ha loogu yeero kulligood ha loo yeero hubkeeda iyo waxeeda dhan ana bixinaya ninkan ha loo dhiibo mar kale uu furta igu fiiqay adoo ku sheegay jabhadaha ha loo dhiibo yiri markaas waa mar kale waa yaab kale waa yaabkii labaad waa lagu soo galay waa lagu soo galay okay maxaa u tagayo على نيكي جنرالكي ادميرالكي wuxuu waday warqadu oo Brezhnev soo saaray oo wada Brezhnev waa maqli jirtana madaxweynihii Soviet Union marka wuxuu yiri wuxuu u macnay maxamed xuri okay waa aqbalay orada ku aqbalay anagu orada ku aqbalay dhulkiina doonta waa soo dhaweydeen soo dhaweey kome sidee si la yaab la soo dhaweyn anigu kulay baa soo dhaweey
maalin labaadii uu ii yeeray maxamed siyaad markii uu ninkii la kulmay kadib markii uu ninkii tegey ayuu ii yeeray isagoo sabantar la ag fadhiyaa nu tegey wuxuu yidhi haddee hawshii ruushka kuwa igmaday hadda ku dhaqaaq buu yidhi ku dhaqaaq wanin ruush waxay adigu haddeer hawl ma ii dhiibaysaa aan idhi waa kuu dhiibayaa wuxuu yidhi waa midii uu ninku sheegay jabhaddii aniguna haddana odayaalkoodii la hadlayaa adiguna aruuri haddeer aruuri meel qorshayso haye hawshaas madaxa la gal waa maxay sababta marka adiga jabhadda lagugu dhiibay marka wuxuu yidhi adiga ninka xaggeed isku barateen uu yidhi kiya u sheegay cali samantar u sheegay war anigu ma baranaayo ninku wuxuu yaqiina waxaan soo bartay adigu maxaa soo baratay markaas guarilyadaan soo bartay midaan oo dagaalka jabhadaha iyo sirdoonka inta waxa kale inta kale ama ogaada ama ogaan laakiin taasaa ku jirtaan waxay aan soo baran marka maxaa iigu sheegi weyse anigu maanaha kaaga sheekey kara ninaan waa naloo dhexeeyaa baan idhi kanaan ku laadayaa ma ogta markii asagaa waxa dhan sheegay markaasuu saas u dhigtay rasawada maxaa waayo waxaa la sheegay maya tani jaalamadaa wayne waa ka xumaa inaadan ogeyne aanaan ku ogeysane ninku waa waxaas la sheegay buu bes haddii hawshaan la gala meeshaan meel qorilow la yihahdo jabhadiyaad guda gashay marka jabhadiyaan guda galay madaxweynihiina wuxuu kuu sheegay inuu ku taageersan yahay hawshaa qabatid maxaad samaysay marka jabhadiyi baan adiga jabhadiyi marka meeqa jabhadood wey markaas marka adiga Soomaali iyo Oromay u kala baxaan oo kala saaray Oromada ayaan aragtay waxa weeye iyo caruusada kuwa Soomaali sheeganaya ayaa meesha jabhadii Soomaali abow markaas loo baxay waxaas ayaga sheeganay Oromada miday ahayd Soomaali galbeedna miday ahayd Soomaali maxaa kaloo jabhad jiray maya ayagaas la waay labadaas yacni midan Oromada oo Soomaali galbeed sheeganaysa Soomaali abow sheeganayso iyo kuwan Soomaalida oo Soomaali galbeed ah labadaas aan u kala saaray kuwan abowga qoryo markay soo yaaceen waa nagu soo buuqeen meel walba ka soo yaaceen yes qoryahan meel xuduudahan dejinaa ayaan dejiyaa cuntada sideed u qorshaysa marka sideed jabhadaha u qorshaysa deewaanta ku shaqada kuwaas waxaan ugu talagalnay inaan markay yimaado week camal inaan wax yarto toosno ay noqdaan inta qoryahoodii rasaastooda siino markaasna ay dhulkan Soomaalida inta ka gudbaan dhulkooda markay galaan ay dadka xabashida ah oo maaragtay ama leh nimankan dhul goostayaalka oo iyo kiisada nimanka jooga qoladan dhulkii beeraha qaatay dadka ku shaqaysta hanti goosadka nimankaas ka taqalusaan dhulkeena waxaysta ka xoreysta ka xoreysta laayana mid idin ka carar ma ogay mid kale marka waxaad siisaan qoryo iyo rasaas aan siinaa yisaad waa inta yar sii socdaan inta kale deegaankoodii isticmaalaya waa rich malab le dardalaan marka imsa qoryaad bixideen acuudu billah dhowr kun aan bixinay oo maaragtay hadda qoryo kala duwan oo adiga nimankaas waxaan idhi inta markaad tagtaan riixa nimanka galbeed u riixa erya waxaad aragtaana dile joojka guba kulli way sameeyeen man yaabalo ilaa iyo maasla inta ka dhaxaysa eber waa dhulkaas waa dhul weyn oo 2,000 kilomitir kuwa saasaan ugu talagalnay kuwa Soomaalida in la tababaro ayaan ugu talagalnay tababar xoog la siiyo 2 iskuul aan furnay meel qorilow la yiraahdo aan ka furnay midna waxaan ka furnay meel la yiraahdo Agabar oo 50 kilomitir Hargeysa ka shaqeysa nameed baan ka furnay qorilow xagee ku taala Agabar
hargeysa 50 kilomitir ka shishaysa ay ku taala midda kalena xerada kale qorilo halka shabeellada dhexe maya xamar 7 kilomitir u jirta shabeellada dhexe ka tirsan tahay shabeellada dhexe ka tirsan ayada marka halkaas aan dejinay 1200 waxaan ma aqaan halkaas aan dejinay tababar xoog leh oo waxay qaateen 8 bilood ah ayaan seenay waxaa joogay jabhadda golaheedii dhexe iyo waxaas oo dhan xamar aan ku tababaraynay jabhaddana xaggaas aan ku madaxdoodana ciidankiina halkan qorilow waa ku mashquulay imisay kugu qaadatay tababarka iyo diyaarinta jabhaddaas ku dhowaad sano hal sano ayaad amuurtaas waday ayaan waday dowladduna kugu taageeraysay dowladda waxaan rabaa dowladdan ka soo qaadaya maaragtay raashinkooda iyo maxaa kuugu yaab badnaayood samaysay intaad tababarkaas waday ood xasuusataa wax kaloo looma yaabin markaan ciidankaas hawlgelinay oo meel dhexe marayo intaa horta baabuur ku soo qaadaan waxaan ceel barda meesha la yidhaha mataqaan xuduuddaa dhex marta halkaasaan baabuur ku geeyey bakool ka tirsan awal baan 100 ratiya waxaan ka gaday buulo barta iyo tiyoglo inta u dhaxaysa reeryadoodii iyo xargahoodii iyo waxooda wataa halkaasaan galabtaas isugu geeyey ciidankii oo awr wataa awrtii oo diyaar ah iyo kuwaanan ciidankii un baabuur ku qaaday baali waxay ahaayeen rarkii oo dhan baa awrtaasaa lagu wareejiyey marka saadkii u qaadayaan iyo rasaastii iyo qaadayaan marka yaabka wuxuu ahaa markay meel dhexe marayaana waxaa ka horgeyo nin jaajuus ah oo Ethiopiana mise Soomaaliya oo Ethiopiana marka wuxuu yiri goday inta tagu yiri Soomaaliya oo dhan duulaysa meesha martuu yiri ciidan xoog leh oo 4,000 rati wata balaayo sheeg hadda marka waa la weydiiyay xaleesad ku taqaanaa Soomaalida geediga iyo waxa sheegaysa ku kala Soomaalida ma yuri Soomaalida Soomaaliya awrta wuxuu yiri labada dhinac waa ka kabaaleeyaan labada hore iyo gadaalba waa ka kabaaleeyaan laakiin dhinaca Etoobiyaanka Soomaalidan hal dhinac le ka kabaaleysaa uu feer balaayo alle ku gurid marka rarka kala duwan kabaaleynta kabaalada Soomaaliya iska leh leey marka Soomaaliya iska leh kabaalka waa qaan reemiga waa bahalkan ursha dheer oo hore iyo gadaal oo de wax walba haya taas horta igu cajiib badnay qabtalka iyo kulli ninkaas horta igu cajiib badnaa nin balaayaha oo ahaa Soomaaliya seed ku ogaateen inuu saa u sheegay ninkaas kuwii xabashada wixii raggii laga qabtay iyo wixii oo dhan sheegay markii ciidanku uu tagay 100 rati wataan habeenkii lay guura socdaan maalintiina waa degaan waxay tageen wabiga Shabeelle ku tageen wabiga wax awalaanay urur baan mid 3 urur aan mid ragaad baan u bixinay ragaad marka wabiga gaartaan meel ku haboon dega waxaad ku daan gaadmo saas ugu dega ambush gaadmo dega waxaan ogaa markaas waxa soo boodaya ururkii goday joogay oo militariga Etoobiyaanka halkaas isku soo qaadaya shub inta u tiraadaan markuu uu soo dhex galo goday meeshii degeen hilal laab la yiraahdo laab ayay degeen wixii bay degeen ururkii gan ma yaayimid markuu ku soo dhamaaday meeshii ambushka ayay horena ka xireen wuxuu ku tagay hore block road block hore oo ku tagay jidgooyo kii dambana wixii dib u carareen markiiba waa laga xiray gadaal waa la isku waa la baabashay ururkaas waa la baab jabhadiya baabisay eber
marka waxaad leedahay jabhadihii shaqo badan ay qabteen oo fiican labadii kuwii kale waa tageen marka ayagana maxaan siiyey dhulkooda marka qari jiqooda iyo halkaas inta ka galaan inay xabashada koonfurta iyo bariga usoo reecaan oo maaragtay tuulooyinka iyo ceelasha iyo degmooyinka banaanka iyo waxaasoo dhan kasoo sifeeya oo ku haran magaalooyinka waaweyn keliya magaalooyinka waaweyn oo qabri dahare dhagax buur iyo goday ee lagu soo aruurshay inta kaloo dhan laga soo kacshay kuwii xagga oo agabar ayagana sidaasoo kale baabuuraan ku soo qaadnay awalan 100 rati oo kale waxaan meel fogaa awrta laga soo gadaa shashaban iyo bulaala ma maqasho waa maqlay heelasha halkaasaan ka soo gaday awrta iyo heeryada iyo dhigaha iyo xargahooda iyo jinigooda tuulo la yiraahdo Ararso oo wadada ku taala goday iyo qabri daare dhagax buur u dhaxaysa iyo jigjiga wadada weyn oo tuulo yar oo ku taalo Ararso la yiraahdo halkaasaan inta maqr casirkii ka soo qaaday baawar ku soo qaaday oo maqribkii Hargeysa mariyay wadaxma wada bariis la ku dhagay halkaas ay geeyeen tuuladaas ay geeyaan in yar hore u dhaafiyaan dabadina ay soo noqdaan waajibkaas siiseen waajibkaas baad siiseen ayaa seenay awrtina meesha u taala kula kulmeen awrtii ku daldasheen meel la yiraahdo ceelo obo oo kasoo horjeeda baabil iyo jigjiga iyo saas harar ceelo obo la yiraahdo halkaasay degeen kaasaan dejinay waa 1500 xasee 300 oo orama waxaan iraadinku hoos u dhaadhaca ilaa iyo buuraha oo maaragtay kuwiina waxaan iraadinkuna halkaas qabta ciidamada Itoobiya oo dhulkan Soomaali galbeed jooga 1 gram iyo soo imaanin wadadii qaf wadadii harar iyo jidgooyo ku sameeyeen jidgooyo dhuunqabada loo baxshay ciidanka jabhadaas dhuunqabada loo baxshay halkaasay ku dhigtay eber wax u yimaaday way gaajo iyo belo hadda cirna lagama soo balaay karay sidaas baa jabhadihii ku howlgeliseen meeshiina ku geyseen markaa qiimayseenna waxaa idin muuqatay inay shaqo fiican idin hayaan maxaa markaas kadib ku dhaqaaqdeen waxaan kaloo awal baa markii hore oo jabhada la ii dhiibaya waxaa sida nidaamkuba yahay jabhaduhu magaalooyinka iyo waa ka soo eri karaan iyo tuulooyinka iyo laakiin magaalooyinka waaweyn kama saari karaan markii magaalooyinka la isugu soo arooriya nimanka ciidanka ayaa ka saari kara ciidanka markaas hadda ciidanku waa howlgalayo haddii kale hadda nagu yaan jabhadii wareerna la gelin marka ciidankiina diyaar garoowa ka socda marka jabhadana diyaar garoow ka socda ciidanku sidoo diyaar awal waana technicada ku sheegay si daran ay u diyaarsan yihiin sidaad hawshii u wadeena waxa la gaaray marka waxa la gaaray marka oo imid waxa jabhadii halkaas ay waxay geerayaan ciidanka hadda amar hawsha qabtay madaxweynaha ku leedahay Maxamed Siyaad hadda hala diyaariyo ciidanka waxa dhacay laakiin intii aynu ku mashquulsanayn problem ma jira inta aynu ku mashquulsanayn anagu jabhadaha iyo waxyaalaha ayaa Xayl Salaasa meesha ka baxay mingista qabsaday kacaana ka dhacay wax walbana laayay agluulu leeyay amaan andoom dilay ninkii generaalka dilay oo wixii dhan laayay markii hore wuxuu noqday filo Chinese markuu waxaas qabsanayay
marka ruushka iyo shiinayskuna waagaas dab iyo bensin. xalqadii koowaad ee jenaraal maxamed nuur galaal iyo dagaaladii 64 ilaa diyaarintii jabhadihii Soomaali galbeed iyo Soomaali abow ee dagaalkii 77 ka hor intaas ayay noogu agtahay. waxaa marka insha Allah hadii ilaahay yiraahdo xalqada labaad ayaa waxay noqon doontaa ciidankii qalabka siday ee Soomaaliya iyo sidii dagaalka uu u galay.